عامل شاهد له markaan waxaan la kulannay mid ka mid ah macallimiinta dugsiga ee ku sugan kaamka tawxiid oo ah dad barakacyaal ah ku soo barakacay deegaanka ceelasha biyaha haatanna waxaan la kulmay macallimiinta wax ka dhiga dugsiga quraanka kariimka ee kaamka tawxiid ku dhex yaala macallinkaas oo ah mid camoole ah oo ardada wax u dhiga macallinkaas ayaan waxaan ka qaadnay waraysi haatan macallin waxaan naga warantaa sida waxbarashada iyo dugsiga intaba u socotay adigoo ku bilaabaya magacaaga alxamdulilah alhamdulillah wasalaatu ala rasuulillah sallam ilaaba maxamdile dugsiga waxaa ku yaala kaamka tawxiid waxaan ku dhugnaa fii sabiilillaahi magacay waa macallin cabbaas cabdi xasan macallin ayaa layidhaa waxaan ku suganahay kaamka tawxiid dugsigana insha allahu fii sabiilillah ka dhignaa alxamdulilah noloshayna aaday kusoo u liidataa hadda sacaddan joogda hataa cunug hataa caana umahay gurigana waa igu dunsan yahay may dhisna dugsigana isaa igu baahan yahay walaasa aadnoo hayaa waxaan u baahanahay kaalmo daryeel dhaqaalo ayaan u baahanay insha allah bidn alkariim haka ardada dhigata dugsigaada imisay gaarayaan insha allah ardayda waxaa geenaa 45 arday waaye 10 waa gabdho 35 waa wiilasha haye wax dhammeeya quraanka ma ku jiraan ardada u bilowday quraan kariimka maya kii ugu horeeyay hadda waxa jira al-luqmaan ay ku jiraan haka haye yaa gacan ka geysta marka dugsigan oo dhista ka samaysan in la idin dhiso yaa gacan ka geysta guddiyaasha kaamka ayaa ku lug leeyihiin Sheekh Xasan been ay haye ardada marka maxaa yaa lacag miyaa laga qaadaa macnaha mise ardayda waa dad iyaga baraka wax ma haystaan fii sabiilillaahi umma ilaahay giis aan ka dhignaa haye maadaama aad adiga qof camoola aan waxba u jeedin yaa kuu shaqeeyo oo wax ku siiya maadaama ardada aad lacag ka qaadin waxa ishaqa mal islaanta hawayar waa meelaha suuq ay damiil ay ka xamaalata intaas man ku noolnahay adiga waa kasaata waxaan ugu filantaa maayna hadda saakad hadda aan kula hadlayaa uniga insha allah kobshay umahay jigiyada wadan santahay ilaa hadda ilaa ibka ay ka aad suuq leelash ay ka aad damiil ay qad ku xamaalata hadda intaas ay idan sugayna insha allah waa gartay ma jiraan marka cid hadeertaan oo wax dhaqaala ama wax kaalmaa ku keentay ama aad ka filayso maya haye marka waxaad naga warbixisaa meeshii aad ka soo barakacday intii aad iman ceelasha biyaha waxaan ku soo kacay xaafadda howlwadaag ma xaafad gooniyaa deganeedeen mase meel barakacyaal oo kaam oo kale ah kaam aha xaafadda aadan deganaay meeshaan oo suuqa bartasiigal ay leeyihin meeshaan ka soo hortay haye meeqa carruura kuu joogtaa waxaa odhan joogtaa 8 carruura wax qaangaara ma ku jiraan oo maya haye ku igu weyn waa 10 jir waa 10 jir maxaa ugu baaqaysaa dadka Soomaaliyeed adigoo ka faa'iideysanaya fursadan dadka Soomaaliyeed ee wax haysta kuwa dibadda jira jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo cid kastoo jecel wanaag yaa kaalmo ka dalbanaysa ummadda Soomaaliyeed kii dalka jooga iyo kii dibadda jooga intaba waxaan ku codsanayaa masaakiinta oo soo barakaday in la kaalmeeyo oo waxa la siiyo inay soo kaalmeeyaan saasaan ku codsanaa waa gartay aad baa u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa macallimiinta wax ka dhiga dugsiga quraanka kariimka ee ku yaala kaamka tawxiid macallin Cabbaas jazakallahu khair